السلام الله عليكم أصحابتي واشي عدك كمبيوتر على صوت ساعة عدك وعلى صوت حي أنا ما maantay waxaan furi doonaa kiis culus oo u baahnaa in laga hadlo lana iftiimiyo laakiin muhiimadeedu waxay tahay dadkii shalay aniga hooyadii caynayay anigana aflagaadeynayay yaa cafinayay maalinta marka kaliya aan dareemo in dhalinyarada Soomaaliyeed aqligooda lagu ciyaarayo waa marka aan go'aansado barnaamijyo aan ka hadli jirin inaan ka soo hadlo haddii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigana fikirkaaga nagu waa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan waa tahay barnaamijkan wuxuu ku tacalluqaa ninka la yiraahdo cilmi oo dhawaan laga keenay social media codad sir ah oo dhankaasi Snapchat-ka lagu wadaagay ama la isugu diray oo intii screen recording laga soo duubay TikTok la soo dhigay codkaas social media labadii maalmood u dambeeyay ilaa iyo xalay ilaa iyo maantay aad baa loo hadalhayaa sabab kale looma hadalhayee dhacdada hadeer social media timid ayaa waxa ay xiriir la leedahay ama talaal ay la leedahay dhacdo social media muddo 6 isbuuc ilaa 7 isbuuc ka hor taalay waxay markaa maskaxdeen aan dib u celiyo wiilkan halka ka arkaysaan wuxuu kamid ahaa dhacdadii social media 6 isbuuc ka hor taalay dadkii lagu aflagaadeeyay ee lagu haligay qorx ku dhiigle baabajay iyo sidoo kale ayub carlo ayaa waxa ay isku afgarteen in live game is la dheerin ninka la yiraahdo cilmi sababtoo ah waxa ay qiyaaseen ama ay sheegeen dhaqanka ay arkeen inuusan ahayn dhaqan normal ah uu yahay dhaqanka dadka jinsi wadaaga ah sidaas darteedna aan loo baahnayn in ummadda Soomaaliyeed ee dhalinyarada soo koraysa iyo dadka yaryarka hadeer daawanayo in aan wax kaftan oo normal aan looga dhigin ee ninkan la iska ilaaliyo waa sida iyagu ay sheegeen arintii oo taagan waxa dhacday in baabajay uu raaligelin ka bixiyay oo yiri aniga cilmi lama ciyaari doono maanta wixii ka dambeeya raaligelina dhalinyarada Soomaaliyeed baan siinayaa main game buu ciyaaray ninka la yiraahdo cilmi uu soo fariistay wuxuu ka sheekeeyay dhibaatooyinkii soo dhaxmaray hooyadiis isaga hortiisa in lagu dilay familkiisa dhibaatooyin soo maray in maskaxda dhaawac fara badan ay ka soo gaareen dhibaato waa soo gaari kartaa familkiisa in lagu hor dhibaateeyo macquul qofka maskaxiyan wax u gaari karaan taas dhibaato ma laha waa sax xaalad emotionalka markuu ka sheekeeyay boqolkiiba boqol waxay dhinac kale u rogtay xaaladii markii hore taagneed waagaas baan ka hadlayaa tan hadda u soo socdaa fiidiyogan hadeer aan fasixi doono wuxuu halboolo u yahay muuqaalka maanta bartamaha muuqaalka ayaan fiidiyogan ku sharxi doonaa balse hal mar ila daawado oo billahi oo talaha ayub ka 200 kun lacagta America waan ku bixinayaa noloshiisa waan baabi'inayaa si fiican ninka ka dambeeyay baa aniga naan la yeelay ayub ka loo ahay fiidiyogan bartamaha barnaamijkan si qurux badan u sharaxaya xasuusnaada okay arrinka markuu halkaan marayay markuu waxa dhacday xaalad hal mar biska disay ninkan cilmiga markuu ka sheekeeyay waxyeeladii iyo dhibaatooyinkii soo gaaray waxa dhacday in la yiraahdo cilmi waa laga khaldan yahay haska dhaqan xumaado laakiin waa nin maskiin ah waxa lagu sheegayna wax cadeyn cid u haysan malaha Soomaaliya ninkan waa laga khaldan yahay baabajay qorx ku dhiigle iyo Carlo kulli waa lagu wada kacay waa la wada aflagaaday waa meel walba ilaa iyo baabajay inuu raaligelin bixiyo la gaarsiiyay qorx ku dhiigle sidoo kale cadaadis baa la saaray ayub Carlo cadaadis baa la saaray waxa cadaadiska loo saaray marka hal arrin baa la ilowsanaayo ahayd war cilmiyo hadii adiga maskaxiyan wax ku soo gaareen in lagu aflagaadeeyo waxaan lagu arkin lagu sheego waa khalad waa sax adigana dhaqankan ruuxana ay u dhex jirto babbi islaan jinni aga dhaxalaysay in dhaqankan waxaan dhaqan u leeyahay ma aha George in la dhaho waa la iloobay Soomaalida boqolkiiba boqol waa dad lagu qaldi karo qeyr Jabaanka waa la wada horti cilmi faraha laga qaado aniga arrinkaas waagaas kama soo hadlin waa u jeeday laakiin sababtoo ah waxaan ogaa in main game meeshan uu ka socdo cadeyninkan inaan lagu haynin inaan la dhihi karin waxaan uu yahay sidaas darteed arrinkan kama soo hadlin kiiskii waa dhamaaday ninkii sidoo faraha looga qaaday dadkiisu dhex boodi jiray wiilkana soo hadlay oo yiri
ku dhaartay isagii awlaadiisa iyo magac Ilaahay ku dhaartay yiri war anigu ninkaan i weydiistay inaan xubnayga taranka la wadaago cilmi intuu soo ugu dhaay waxay soo dirtaa fiidiyaasha fiidiyaal adoo qaawan nugiska gacanta ku ay soo diroona waa lagu kacay waxa la yiri tuuqa in oo beelow aan raadisata dad commentiga oo waxa uu adeegaya asxaabul commenti cilmi waxa uu adeegaya farafudud oo aan 5 kun ka dageen cilmi hadaa saas way dhahdo 5 kun oo commenti soo karbaasha kugu dhacay waagaas waa dad kala soo baxay oo dhahayo warnikan muuqaalada uu soo duubo astaamo ama calaamado dad gooniya lagu yaqaan ba gurigiisa ku dhagsan waa iska indhatire fiyooro waa leer ubax waa yaan loo bixin waxay soo gudgadisay marka soo socto arintii waxay hadeer timin in cod clear ah la keeno oo la dhaho war codkan Soomaaliya dhageysta codkaas oo ah dalab la dalbanayo xubinta taranka ee ninka la leeyahay muhiim baan xubintaas u ah maqsuud baan u ah hada diiday walaalo maxaan sameeyaa barnaamij noocaas oo kala Ayub Carlo waa ka soo hadlay wuxuu yiri shalay way caayiseen marka wax idin iftiiminayay way aflagaadeynayeen anti oo tuba dalbanaysa ma aragteen ha waa aragteen aniga ninkaas dartiis waa i caayiseen laakiin waa idcafi sidoo kale wiilkii shalay la caayay ee awlaadiisa magac Ilaahay ku dhaarinay isaguna waa ka soo hadlay dadkii shalay aniga hooyadii caayinayay anigina aflagaadeynayay yaa cafinayay maalinta qiyaamo nimid meesha taaltaas waa yaa cafinayo kulleeto qof walba maalin waa tana marka meesha ciyaarta ka bilaabanayso waa meeshan mind game ba mar labaad dib loo dheelay oo ah aniga wixii aan sameynayay wixii ahaayeen wax la igu qasbay cilmi wuxuu ku nool yahay Mareykanka iyo United States of America ogow yaa wuxuu yiri wax la igu qasbayay ahayd blackmail lagu ma sameyn karo sharciya jira wadanka uu joogo qori cid madax kaga ma qaban karto cid xoog United States of America ku nool yahay xaalad waa dawladda koobaad ee dunida ugu quwadda badan ku nool yahay hadana wuxuu yiri waa la igu qasbay waa socon weeyday waxay igu xujeeyeen inaa isqaabiyo oo kastuuma isku eebo mar labaad ba hadana mind game la dheelay oo ah arrinka baraanki u ah cilmi waa saabo dhahay kaba dhahay waa aniga baraanki baa mar saddexaad ba hadana mind game la sii ciyaaray oo la yiri arrinka wuxuu ahaa cod computer lagu gudiyay oo aniga ma ahayn waxa cod computer baa la soo saay codadku waa la soo waxeeyay aniga ma ahayn intaas oo dhan sababta loo sameeyay imtixaan waa filimkii emotionalka ah ee shalay intuu Soomaalida loo shiday ee kulligood maskaxdooda hal mar loo wada gadiyay in Carlo iyo qurux ku dhiglay iyo cay lagu dhaqaaqo la bilaabay isla barnaamijkii kale la raadinaya ka soo tag muuqaalkii hadaa idin sheegay dib nagu soo celiyay ninkii shalay la dhahay cilmi waa maskiin cilmi ha laga leexdo cilmi waxaan ku yiri waa iska dhaqan xumaada leex wallahi waa nin maskiin maanta bal hadallada uu ku hadlay hal mar Soomaali ila dhageys si u soo Ayub Carlo baaya aniga wallahi oo billahi oo talaha Ayub Carlo 200 kun lacagta America waan ku bixinaya noloshiisa waan baabiinaya maxana ninkan waa real gang waa ma dhihin Ayub Carlo waa u tagayaa waa isfeereena waa soo karbaashaya ma dhihin wuxuu fahansan yahay in lacagta ay wax burburin karto wuxuu taagan yahay money ba waxaan ku bixinayaa 200 kun oo dollar ba waxaan ku bixinayaa nolosha Ayub Carlo sa u baabiin lahaa fiiri qaabka xataa macnaha waa another level macnaha waa gangiska adduunka si wax u gumaadaan waa fiidiyowgan hada Ayub Carlo hadii uu ciidanka wadankiisa la wadaago oo uu dhaho ninkaas aniga social media public iga hanjabay inuu lacag ku bixin doono inuu nafsadeeda baabi'iyo Ayub Carlo warqad baa loo qoriyay dharag xataa hadii disho soo Mareykanka duu aaday ama dharag hadii disho ninkan Carlo soo Yurub jooga ama soo Mareykanka jooga kiiska qofka koobaad ee la dabagalay waa ninkan cilmiga waayo public aniga inta maanta soo fariisto adduunka mamnuuc ka tahay ma dhigi karo hebel inaan noloshaada baabi'iyo 200 kun oo dollar baan ku bixinayaa ma dhigi karo qofka koobaad ee hadhow kiiska maxkamadda la soo fadhiisanayo waa aniga
qofka dabagalka lagu sameynayo waa aniga marka ninkaana shalay Soomaalidu waxay naga gadaayeen maskiin waaye waa laga khaldan yahay waa laga yaabaa hadda xataa waxa laga yaabaa mind game kale haduu soo ciyaaro oo emotional oo qeyra jabana in Soomaalidu hadii is wada gadiyaan oo aniga hadhow muuqaalkan dhowr usbuuc kadib comment lagu soo qoray Zakiyo waaga Sundays waa khaldan ninka maskiin waa barnaamijkii markaan kaga hadlay arrinkaas maanta intaas aan ku soo gabagabeynaya hadii aan ugu cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin like taad waa codsi commentigana fikirkaaga waa saantaan ku mid doona barnaamij kala mid ah wasiirka arrimaha gudaha ismaamulka Soomaaliya social media idin leh ciao ciao